كان وحاوي حلبان محمد أبيب وحلبان كدولمان لواتن إثنين مالين سحر ضراها وحرم gudaha Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa haddaba xog baa ka soo korodhay xildhibaanka muuqaalkan kale waa boqor buur madow waa oday waayeelo oo adeerkeen ah khayr la siiyo laakiin dhaqankan uu sameynayo dhaqan mataqaanaa wanaagsan mataqaanaa ma aha waxa arkaysaa waa gabadhii baraha bulshada mar dhow qabsatay ee ragga difaacisay يا أضيء سيدا مجلس وأكاد لدونا سيدو كله قبضن كله يدنا وتقرن سما فنانة دي وبد أركسن وهيني مدي حالة إلهي ما تملأ كشيء لا مصبح بقى عرسانية هيس بيكسو كرباشتي وحاول حالكو وعد كاضي إذا أنا فاقد الدور هدي بيرادو مركب قدبضة سنكسو قادم دونا برنامج كينن oo si xoog ah aan u saari doono Abiib iyo gabadhaas ubad aragsan iyo xariga lagu hanjabay sida aan la soconaba ama aan wada ognahay xildhibaan Maxamed Abiib dulmigu mataqaana ku xidhna 27 maalin baa u dhamaatay oo dulmi ah xildhibaan Maxamed Abiib saasoo ay tahay ما أوصله عدالة ما أنت وحا لو دي هويدي ولا شيء حزبيدي وحدما مددر والله بعتان يتداوم مالين وما أنت وتهاي ما أنت وحصورتك الشيء إن وباخذه مشرح مدحوينها داق قد ما أنت هاي سومالي لا عبد الرحمن عرو ومدحوينها ومدة سومالي لا عبد الرحمن عرو أيا باخذ ما أنت مدحوينها وكا حال وريستي أبيب إي حالة سيدة تاي سيدة هذا لورا نغمية مركا ورقاك لورا نغمية يجردلكي وحي وان وقيد يجردلكي نوسو بيستي لكن هذا قاك لورا نغمو كل واحد سيدهين أسوي حجري ممكن وراك سيها والشاري وانا صح مكان ضناك التماعد وانا داك وشاركتها واحد وناكسن واحد داك الله بشاري لكن كان دباتين هي ستنين كسمتها وأبيهاي السجن وأبيهاي مدحوينها هنا عرهم marka Abiib madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu yahay muxuu ahaa codka shacabka oo xiran geesi dhiiran uu soo bixi doona garab taagan yahay wad ku maasan tahay mudan madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro waxa weeye wuxuu tusinayaa dadka shacabka ama ka iibinaya سياسات ديمقراطية أو فرم بكإيبنية هل كان مصبيحي مدحوينها حيل كيسد الماضي مدحوينها متقناي أو هكذا كواسطة كيني مدحوينها إيبيي سوماليلاند و هرسي ذاك ولي بتردري دبعتين قف كسر أو حطلا سياسة دي سنة يكون سلاسل هاي عبورين إلهي بقى يكون دار شيء سياسات السيد اللوكال وحسين فين مدحوينها عرو وحول لي من سياسات فرفران او ديمقراطية او نوها دادك درفيضة حيقا وكلا نقمية عبورين كجيرين باكيان كجيرين قيري كجيرين دباتين كجيرين هنجبات كجيرين هندادات كجيرين حالك كان حلكي سيد ماضي تشوغا مدكرورسيغا حوغا اللي قسيي ودادك وليسي عبورين قد ما سنتهي مدحوينه sida wanaagsan ee maanta aad u booqatay dulmanahaasi muxuu ahaa Maxamed Abiib waa rajayn doonaa insha Allah inuu soo baxo gabadhii ubad aragsan hees bay iska soo jartay xidigii geesa ayana hees kale oo ka sii daran bay soo jareen xalay waliba gabadhii barihan la ciirsanayay iyadana جوادي جينيو يوروب جينيو يا إيجار خاصة شراي أنا هسا كم هذا أنت بدون مركا مع الهسا يك كم هذا ضمر كمان حالي مركا وحاب الله بطي عرسي عيدك سيرتوك تضبن وبريها دمو فشل عليها لقلي
oo gabadha meel joogtay garan waayey xalay waxaan ku sameynay mar habaabin caadi ahayn ku sameynay iyagoo mataqaanaa gabadha raadinaya yaa bahal muuqaalna soo gelin hawada yaanay barbaray joogtaa gabadha wata markaas xagga u yaacay gari wala mar habaabin gabadha meesha joogto waan ognahay laakiin mar habaabin baa intii lagu sameeyay xalay mataqaanaa faqadeen xalay dhan barbaray ka raadinayay ka soo waayay hadana loo sheegay ma meesha ku sugan tahay marka waxa weeye cid kasta oo hadasho waxa weeye maamulka hadda joogo isku dayaya inuu caburiyo oo dhibaateeyo fanaaniinta reer Somaliland ma gebi ahaantood way ka yaaceen cirro ma tala wareysanaayay wuxuu sheegay fanaaniinta wax ku khasbaya kala cararka iyo feega iyo kala farxadka inay tahay xukuumaddu mishaarkii ka goosatay haddana waxay leedahay hadlina shib tii khasab qofku hadli Somaliland anaga waxaan loo sheegay inay dimuqraadi shacabka asaasa loo sheegay marka inta kale hadlaan way oo waxooda ay gudbiyaan cid kasta oo hadasho hadii la wala dili wala caburin baliyaa ku dhaashay fanaaniinta inta la eg ee xidiga geeska iyo kuwa kale ee tirada badan oo hadda gawaran ugu horeyso haddii la yiraahdo dhammaan ama gidigooda mataan waxa laga sameeyay xabsiga la geliyo suurtagal ma ah waxa dhici karna ma ah xabsiga ma qaado marka siyaasadan musabbish u adeegsanaya ala jubleenta iyo caburinta wali wiilkiisu adeegsanayo ma anfacayso isaga anfacaynin ayahooda dambe anfacaynin ayahooda dambe anfacaynin hada waxa xanuunsan ilaahay caafiyo madaxda dalka Djibouti مقال بحال سوقي ضد أردن وحيرين إلى يهدلو مدنتو كان مصمم وح إيه هذا أطول يابي أنت سمعني وهدي قلت يبدين واي وحوي وين عين هيد كجاري مرك قفك إن أنت ذكر عبرنتي باقي هيد وجارو أو باقي لجارسيو ما في عنه وهو أنا السنة ما تغني بقى مركز سياسة caburinta ku saabsan mustaqbalka dambe ay dhibaato matana ku keenaysaa mustaqbalka dambe ay dhibaateen ama dhibaato ay ku keenaysaa wax wanaagsan ma taqaanay midka kale soo qaadanay waa boqor buur madow bariyaha wuxuu joogay furmaha dagaalka dadku aabulayay dagaal horle iyo hada weerar hal la qaado iyo mataqaanay yuulaha muqaalka ay tusiya laga soo qarxiyay oday gabadha mataqaanay uu yahay كل أو فوق ويعود وبتعرف مع صار مغلي مركا سيبريها اللي سعتي مقاخة على صوت طوري وح أنشح معه أوقات وحموية وحوالي سمة تقرأي معها مركا أضيبو سوق الصون نقضي ببريها سبحان الله مثلا وريجي حنجبات أكسو هذي حنجبات يدير يعرف ده ترسو إيش اللي خاطم الإسماء لو إحنا قبسي مثلا واللغة إسماء مخرجوكها محبيست مثلا حريصا xilligan iyo orkaasi iyo dirir iyo colaadna waxa tarimayso umada inuu nabdeeyo oo si wanaagsan labada dhaqmo ayaa mataqaanay wanaagsan taana uu ka shaqeeyo laakiin oday waxa mudaa inuu garab maray oo colaada dhankeedii uu u jeestay taana waxa mataqaanay isaga mustaqbalkiisa ee tan Somaliland intaba intaas muuqaalkan aan jecelahay soo afmeero la wadaaga saaxiibadii